koonkan aadmiga jooga qof kasta kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan saad u hesho xubinta kalamaan maalin walba fadlan subscribe sar page-kan Dulmidiid Media akhyaaray sidee la yahay reer kalamaanow orda wadooyinka soo fiiri sida la yahay arkaysid waar wadooyinka horta hayra aadina maanta wax la yaab laan arkay hada waayahay isbitaalada tag sida la yahay aragtid wariyatan oo kala ark cimrigaago raaga geel dhalaayo ku tusaabaan maqli jiray maanta cimrigayga raagay abwaaninda geel oo luqaynaya ayuu war abwaanida geel abwaan am oo lugorada way lanki erjiri way galeeydi ka baado qoryoolaya gaalka ayaa geeya talow yaa isaga goosha kulay kala ma guurtaan war ha u gafin oo gabaga hadaqriga way ma taqaanidi allow yaa isgarabsada kulay kala ma guurtaan buu yiri abwaanku adina may bahil maantay war abwaanku xilliga uu sheegaya waa inta wadooyinka la xirin markuu lahaa hobyo godaya doolo allow yaa isaga goosha hadda xamaran bal isaga gooshi karin marka inta geelo waa qabaar mooge hadalkiisa laga dhaaf war abwaanka markii wadooyinka la xirin miyuu gaari gatay warnimay ahun galeydii ka baxday qoryoolaya gaalkacyo geeyaan ku soo xusuustay foolxumadii ka dhacday gaalkacyo bal iiga warrama xagay maraysa war adeero calaalxumadeeda naga daa war dambiilayaashii waa la daba joogaa madaxweyne xaafna wuxuu yidhi waa la soo qabtay maa sugsid xaggee u degdegaysaa ilaa hatili roog walmasiinka hayno warkii may baqnagya waa la fashiliyey tiisin eli jarteen warnimada waxaan ka baqayaa baaritaanadii guddiyada loo saaray arrintii gaalkacyo inay ku dhammaato dadkii falkaas geystay madaxa loogu jiray haddii leeyahay dadkaasi waa dad waalan waa xaqiiqo sababtoo ah dad fayoobay falkaas oo kale ma geystaan war dambe kale dambe mar hore isan ka dhaga ma jirtaan waalan ying malsiin ku weeraa mis waalan adeeg masfiya wadan dadkaas ay mayl faday inoo maxkamada saardano birtil ka asara ariyaada waadinka gaalkacyo ku meeraysanayee dibkii ka dambeeyey oo qaraxii shalay sayidka ka dhacay dadkii ku baabaay iyo kuwa bari dhimanaya maad ka hadashaan war muqdisho waxa ka dhinta lama xisaabiyo war hadda kadib waxaan qabaa qaraxyada dhacaya hal dhinacay ku badan yihiin in la qeybiyo 4.5 laga dhigay war naga tag wax la wada leeyahay 4.5 lagu qaybsadaay qaraxan lama wada laha war reer qowdhan baa qaraxa soo abaabulay ma waanan qayb laga siinin horta waradeena Soomaaliland waa qaran sidiisa u taaganay qaraxa xaggan guluuda ayuu xisaabsan yahay annaga looma xisaabsana warnimada horta waxaan la yaabanahay ayaan markii qaraxyada laga nasto miisaaniyada dawladdu maxay isku dhintaa horta war ma hayside labada dhanba hal meel bay wax uga soo dhacaan warnimada waayaa markii qarax dhaco koow cidda ciidanka amniga beegsadaan waxay noqdeen saxaafadda marka waxaan la yaabanahay meeshii qaraxa laga hortagi lahaa saxaafadda laga hortaga aan looga hortagi waayey haddii qaraxa wax laga qaban waayey khasaaro uu geystay in laga qariyo dadka Soomaa waxaan arki jiray dawladii dhibaatada iyo khasaaraha uu cadowgeeda geysto iyadoo ku cambaaraynaysay buunbuurin jirtay xoog u soo bandhigi jirtay marka waxaan la yaabanahay dhibaato uu cadaawa geystay in la qariyo yaa loogu darinaya horta war maadiyaan maqal bashaar ha qaatiyo hub iyo shaabad gooniye shaki male inay laba shabaab wada shaqeeyaan war mar hore bay ahayd markii wasiir golaha uu lahaa xildhibaanada qaar baa shabaab ah war taliyaasha salligiga degmooyinka gobolka banaadir qaarkood oo ugu horeeyay kii shalay wareesh xabiday shabaab ay ka yimaadeen cimaamad gaduudan buu wadan jiray war imaamadiyada magaaja ma qoraasan aanaysiin sheegay oo dhageysada kam qatalta yaleere war xala waatii la yiri madaxweynuhu wuxuu la balansan yahay labada gudoomiye labada gole baarlamaanka maxaa ka soo baxay ma kulmeen ma kala tageen meeshii waayeen warniyo war ma hayside madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bixi wuxuu furay imtixaanaadkii dugsiyada sare war adiga warayne mooshinaa laga keenay Muuse Bixi war adeer mooshin aan guurtido ogeyn Soomaaliland kama socdo war fiqi jeesow miya hargeysa tagay waa maxay mooshinka sheegaysa war horta mooshinkii muuday laga keenay xaguu ku dambeeyay war waxay maraysaa xarfaan aan kala qalayno warnimada war ma haysaane maayarka magaalada hargeysa nin baa maxkamadda ka dacweeyay wuxuuna ku dacweeyay facebookiisu blog iga saaruudha wuxuuna yiri waxaan xaq u leeyahay
yahay waxa uu facebookiisa soo geliyey inaan ogaado maadaama uu madaxdaydii yahay hadda ka horre wasiirka maaliyadda bayle ayaa wasiiru dowlaha maaliyadda jubbaland baloog ka saaray twitterkiisa donald trumpna dad badan oo uu sidaasoo kaleeto baloog u saaray ayaa maxkamadda ka dacwooday waanay ka gar heleen war heedha war ma haysaane facebook in ka badan 500 oo qof oo Soomaaliya maanta laga wada xidhay nabad iyo nolol baa baloog ka saartayna waa la leeyahay laakiin facebook wuxuu soo qoray uma qalantid qof walba sidaas uu soo qoray oo kale nabad iyo nolol ma wadooyinkay moodeen markay facebook xirxirayaan war nabad iyo nolol qarashkii facebook baxay ma yareerta war ma haysiine baladweynaha ka soo kuday qofdi ballaaran oo hirshabeellahana maanta waa yimideen araad soo kudida koonbowdaada ma wadata ama kii soo kacaysi maxaad ii soo ciyi wayse khilaafkii dabageed iyo waare weli xal looma helin macawiisle iyo shabaabna waa dirireen hadda waxaa la yidhi halkan kenyaati shabaaba ayaa lagu dilay warni waalan baa tahay xuduudan kenya isku haysanaaye hiiraan iyo halkan iskuma haysano war kenya waxaan isku haysanaa waa badda ee dhulkaba maaha war adeera war ma haysaane burco balaayiya baas baa ka dhacay markaa nin sarkaal ah oo booliiska ah ayaa dhagax lagu dilay oo kow lagaga siiyey war heedha maxaa loo rajmiyey maxadgudub buu sameeyey war ma adeerayaalow dadka booliiska dhagaxa ku dilaya xana loo waco booliiskeenu dhagaxda ujeedadka dhigdhigaha naga qaadeen war arrinka ninkaa booliiska lagu dilay sarkaalka qoladan jaarka nahay baa ka dambaysay war bilaayadii baaskada meeli ka hayd unaanay safari aninka safariidoy haddii wal dilaan haan bilaantu kufsadeen rajmi fadneeyo war ma haysiin kismaayeen shalay la doortay ayaa xal xabsiga loo dhaadhici war ma alsayd axmed madoob ka soo horjeest war xarig way isteelaan wixii ka soo horjeestay war waxa soo malmaluuqin yardo nagala tagay wixii farmaajo ka soo horjeestay facebook in laga xiro waa istaahilaan war adinka dhan astaahila in la xiro gabigiin bay wadaha naga tagay asbax war wasaraga ilaalsho war baa ilaahay idin naxariiste